salaamu ullaahi calaykum idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan ku lafaguri doonaa qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kulan la qaadanaya guud ahaanba wasiirada dalkaasi soomaaliya kaasi oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada lagaga arinsanayo sidii loo baajin lahaa muushano ka dhana ra-iisul wasaaraha iyo sacdiyo samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka golaha shacabka ee dalkaasi soomaaliya waxaa kaloon daawadayaal diiradda ku saari doonaa mahad salaad oo 200 oo maalmood maamulkiisii uu jirsaday ayaa dhaliilo fara badan loo jeedinaya xilli uu magacaabay taliyaha gobolka baay oo horaan u ahaan jiray ambaba ka tirsanaa kooxda al-shabaab waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa koonfur galbeed ayaa la sheegayaa inuu u ordayo siduu madaxweyne uga noqon lahaa mukhtaar roobow oo haatana wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda federaalk ee dalkaasi soomaaliya arrimahaasi oo kuwo kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doona waxaana barnaamijka isha ku hayay oo ila falanqeyn doona saaxiibkay gooni fargodo waa mahadsan tahay haddaan ku horumarno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare xaaladiisa sidii hore ma aha maadaama isqabqabsi fara badan iyo doodo fara badan ee baarlamaanka imaana ay hareeyeen waxaa la leeyahay maalmaha soo socdo mooshinno ayuu ka baqayaa ra-iisul wasaaraha waxaana laga soo bushkareynayaa dalka qatar iyo meelo kaloo fara badan waxaana leeyahay xamse cabdi bare iyo sacdi yaasiin samatar labadaba in xilka laga qaada ayay u badan tahay marka xamse wuxuu isugu yeeray wasiiradiisa wuxuuna go-aan ku gaaray in micnaha ay la socdaan mooshinada iyo waxyaabahan isdabamarayo maadaama wasiiradii golaha wasiiradii soomaaliya ay yihiin waa inay xukuumadda difaacaan qaarkoodna baarlamaanka ay ku jiraan waa inay la socdaan xaaladda dhaqaaqa meesha ka jiro marka waxyaabahaas isku soo wada duube xamse cabdi bare iyo waxaa lagu wajahayaa sacdiyi samatar wararkeena horena waan ku sheegnay waxaa kaloo daba taagan ninka lagu magacaabo mahad salaad oo difaacayo mooshinadaas faraha badan wuxuuna u duulay dalka qatar safar qarsoodi ah ayuu halkaas ku sugan yahay asagoo ka dhaadhicinaya dowladda qatar inay ka dayso dhaqaalaha iyo mooshinada dhaqaalaha faraha badan ee mooshinada ku bixinayso iyo inay micnaha kasoo horjeedo dagaalka al-shabaab marka wuxuu dhahay annaga waxaan u baahanaa inaan dowladda soomaaliya saaxiib la noqono oo dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay saaxiibo noqdaan isku soo dhawaadaan nagalna daayo faragelinta faraha badan laakiin dowladda qatar waxay ku gowracan tahay ee saaxiib dhow la tahay nimanka lagu magacaabo nabad iyo nool fahad yaasiin xaaji daahir iyo ninkii la fahad yaasiin xaaji daahir iyo maxamed cabdullahi farmaajo oo ku sugan dalka turkiga marka waxay aad u dhaliilaysaa waxqabadka dowladda dhama jideed ay hogaamiso marka waxay leeyihiin isku soo wada duube qatar inay saaxiib la noqoto dowladda hadda jirta soomaaliya waxay kula saaxiibi kartaa in dagaalka shabaab la joojiyo in dowladda qatarna ay saaxiib toosan noqoto gacanta midig ee micnaha dowladda soomaaliyana inay qatar noqoto marka xasan maxamuudna taas kama soo rowdo maadaama dowladda imaaraadka carabta uu hoos tago saaxiibna uu leeyahay marka waxyaabahan o dhan waa isdaba wareegayaan dowladda qatar iyo nabad inoo lo iskaashanayeen waxay rabaa inay xilka ka tuuraan ninka la yidhaahdo xamse bare iyo sacdiyi samatar ninkan mahad salaadna wuxuu qatar u tegay in waxyaabahaas dhan ay dowladda qatar faraha kala baxdo isku soo dhawaashana la muujiyo marka qatarna kama soo rowdo inay micnaha dowladda iyadoon gacanta ugu jirin inay ka waantoodo waxyaabahaas laakiin waxaa la leeyahay nimankan xasan maxamuud iyo mahad salaad waxay u janjeeraan dhanka imaaraadka carabta kuwaanna waxay u jeeraan dhanka maxaa la yidhahda fahad yaasiin iyo maxamed cabdullahi farmaajo marka iskuma soo dhawaan karaan kala fogaansho iyo mooshin iyo tafaraaruq iyo kala carar ayay baasha ku socotaa fargodo dhanka kale haddii aan guda galno mahad salaad laftiisa waxaa la sheegayaa in 200 oo maalmood ay u dhammaatay muddo xileedkiisii oo haatan uu hayo marka habka maamulka wuxuu maamulaya waxaa la sheegayaa inuu haatan magacaabay gudoomiyaha gobolka baay dhanka maxaan ku dhahay arrimaha surdoonka ee dalkaasi soomaaliya u magacaabay mukhtaar roobow nimay walaala yihiin oo horaan ahaa shabaab horta ninka la yidhaahdo waa sax 200 oo iyo 1 maalin ayuu hadda jiraa ninka lagu magacaabo mahad salaad wuxuuna leeyahay waxqabadkiisii faraha badnaa ee dowladda usoo qabtay iyo waxyaabaha uu ku fashilmay way kala badan yihiin waxqabadkiisii nisa intuu joogay inuu xiriir la samaystay dowladda Ethiopia oo nisa waxyaabo badan oo fikradaha lagu soo kordhiyay iyo markii laga raabay in shabaabka duqeynteeda uu gacan ku yeeshay maayna inta kale uu ku fashilayaan leeyahay waxyaabaha marka uu ku fashilmo waxaa ka mid ah in nisa ay amniga magaalada muqdisho iyo sirdoonka ay ka gaabisay ay wax badan ay ka qaban weysay waxaa kaloo ka mid ah dad shabaab ku jiro oo shabaabnimo lagu sheegayo ama faraha ku fiiqaan ama micnaha dowladaha hore hala soo shaqeeyaan ama shabaabka ha ka tirsanaadon ama ha iska soo dhiibaano inuu nisa ku daray oo mar xilal badan u magacaabay xataa mar wiilka xasan daahir oo sheeg inuu ku daray markii dambe isqababsi dhacay madaxweynaha uu ka saaray ninkaas laga saaray marka waxaa kaloo marka hadda lagu haystaa in mukhtaar roobow walaalkiis
loo magacaabay gudoomiyaha nisa ee gobolka bay u qaabilsan maadaama xarunta baydhabo ay ka tirsan tahay bay ninka yara lafta gareen oo joogo halkaas siyaasad ayaa laga wataa waxaa laga yaabaa in mukhtaar roobo halkaasi madaxweyne looga dhigo oo pressure la saaro ninka yara lafta gareen marka meelahaas warkeena dambe ku faahfaahin doona taas marka in gudoomiye nin shabaab ahaa fikir shabaab aaminsanaa in horta laga dhigo oo bay bokol loo dhiibo xil looga dhiibo horta culays ay ku keenaysaa maha salaad waxyaaba lagu eedeynaya kamid tahay marka maha salaad 90% waxyaabihii oo qabtay iyo waxyaabihii oo qasaariyay waxyaabihii oo qasaariya badan la leeyahay sababtoo nin khibrad fara badan u lahaa nisa iyo waxqabadka ciidamada ma ahayn marka la talin fara badan iyo go'aano oo asagu iska qaatay iyo la taliyaal dad saaxiibiis la taliyaan oo iska sameeyay ayaa inta badan horta qalaasaha iyo dhibaatada keeno marka isku soo wada duube mahad salaad waxaa la dhihi karaa nin inta uu qabtay 30% dowladda u qabtay 70% dowladda lugooyadeeda ka shaqeeyay maadaama uusan experience ama khibrad aad u weyn oosan u lahayn mukhtaar roobo walaalkiis maanta in loo magacaabo meel oo weliba shabaab iskula jireen shabaab iskala soo baxeen waxaa la dhihi karaa mukhtaar roobo 3 sano bar xirnaa oo la dhihi karaa maskaxdu way ka dhaqantay oo xoogaa wuu isbedelay oo odaga kuleel uu arkaa la dhihi karaa laakiin ninkan roobo la dhashay waxba iskama bedelino ciidamadii soo goostay iyo iska dhex joogay markii dambena muqdisho iska joogay qof pressure galaysan mal qof ku dhagleedna ma lahan laakiin fikirkii inuu aaminsan yahay waa laga yaabaa sababtoo xasan dahar aweeso 5 sano 7 sano ka badan xirnaa ayaa weli wuxuu taageersan yahay fikirka shabaabnimada markii qof shabaab soo noqdana inuu wixii ka waantoobo waa iska fududaa ma fududa 100% hal waa inuu qof wixii hal mar ka baxo marka taas ayaa keenayso maha salaad waxqabadkiisa in gaabis noqoto daciifna ay noqoto rag fara badan oo shabaab ka tirsan inuu u magacaabo nisa kusoo dhex daray gooniyo waan usoo noqon doonaa hogaanka ama wasiirka awqaafta iyo diinta ninka lagu magacaabo roobow oo doonaya inuu madaxweyne ka noqdo koonfur galbeed Soomaaliya bal marka hore dagaaladii ka socday aadan yabaal iyo deegaanadii maxay ku dambeeyeen xagee la kala maraya horta dagaaladii Soomaaliya ka socday horta guul ayaa la gaaray cali jeete wuxuu xubin ka ahay guddiga taakuleynta dadka dagaalka ku jiro marka guddiga lagu daray guddiga maaliyadda ee taakuleynta ciidamada xoreynta marka guddigii wuu iska casilay wuxuu yiri aniga guddigan waxaa magacaabay cali guudlaawe guddigii markaan dib u raacayna waxqabadkooda waxba kama jiraan waa wixii loo baahnaa iyo wixii la qaban lahayna meesha kama socdaan marka wuxuu yiri aniga shakhsi ahaan waxaan ka baxay guddigaas oo lagu daray oo guddiga maaliyadda taakuleynta ciidamada dib u xoreynta lagu daray waan ka baxay yar xubnimadeeda maadaama aysan guddiga waxba qabanayn dhaqaalihii sidoo la rabo loo maareynayn corruption fara badan iyo dhibaato badan ay ka jirto guddiga waan ka baxo yiri marka cali jeete hadda wuxuu yiri waxaan diyaar u ahay inaan dagaalka shabaab aan sii wado waxyaabaha kalena leega daayo wax aan fahmi karo daacad ah meesha ma yaalaan marka magacayga sumcadiisa inaan ku hadlayo ma rabo cali jeete waa nin ay ku weyntaan ceebka al-shabaabnimada wax badan ka taray maamulada gobolka Hiiraan dagaalkii ay galeen in macnaha oo aad guul uga soo gahaaway hadda wuxuu yiraahday laba qol bis oo aaminsan cali jeete hor dawladda Soomaaliya inay taageerto aaminsan yahay taas meesha kuma jirto qabiilada Soomaaliyeedna inta badan ma aaminsano markii laga reebo beesha abgaal iyo beesha mursade oo sheegay inay garab siiyeen oo dagaalkan ay kala qayb qaateen wuxuu yiri dhul abgaal iyo dhul mursade oo xoreyn doona laakiin wuxuu yiri beelaha kale dhulkooda hagrada dagaalka ee nagu fiirsanay waxba uma qaban doono marka wuxuu yiri anagu shabaab in la dagaalno way naga go'an tahay laakiin beesha garab ku siisay oo ciidamo agtaada ay ku dhinteen kula dagaalameen walaalnimo ku biday wuxuu yiri horta waa la shaqeyn doona laakiin beelaha aan walaalnimadeena aan inkiray anaguna markeen waa inkiri doonaa yiri sababta wuxuu yiri ninkii adoo dhimanay ku fiirsado wax aad adig maanta ka shansanaysa malaha anagoo dhimanayno ilmaheena iyo xaasaskeena dhameynayo shabaab ay xaniyaha ka jarayaan raggeeni yaa nagula fiirsaday yiri ciidamada wuxuu yiri beesha mursade iyo beesha abgaalna intay noo soo gurmadeen meeshan ku dagaalameen waliba dhulku waliba beesha xawaal ay lahayd ay ka dagaalgaleen oo ay naftooda ku horeen oo rag qaali uga dhinteen marka wuxuu yiri guushaas ay hadda nala gaareen abgaal iyo mursade waan u haynaa meel abgaal iyo mursade leeyihiin wuxuu yiri shabaab inaan ka xoreeyo aniga inaan ka xoreeyo nafta ilaahay aysan ideynin marka cali jeete wuxuu go'aan ku gaaray la dagaalanka shabaab waxyaabaha kale iyo guddiyada lagu darayna banaanka ka noqday gooryo aad iyo aad baad uma hadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaana haatan gooni wax ka weydiin doona gooryo bal xagga koonfur galbeed waxaa la sheegayaa in ninka lagu magacaabo mukhtaar roobow uu haatan doonayo inuu madaxweyne ka noqdo koonfur galbeed Soomaaliya arrimahaasi say wax u socdaan horta mukhtaar roobow waagii waatii oo tartanka inuu galo oo rabay oo laga hor istaagay maamulkii nabad iyo nololna
ay macnaha ka saareen meesha asagoo ciidamada Ethiopia inta loo adeegsaday asagoo garbaduub u xiran magaalada Muqdisho laga dejiyay markaasna lafta galeen meesha xoog lagu geeyay ayadoo dad shacab oo 15 gaarayeen meesha ay ku dhinteen qalalaasi iyo banaanbaxyadii Robo oo lagu taageeray wixii isku soo wada duuba hadda lafta gareen waqtigiis waa soo dhamaaday 19 bishan uu ku egyahay dowladda Soomaaliya marka waxay raadinaysaa in meeshii horta laga saaro asaga Robo asaga damiiciisa asagoo gooni ugu jira laakiin dowladda Soomaaliya in Robo koonfur galbeed madaxweyne ugu dhigto ayadu ma rabto laakiin asaga wuxuu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo koonfur galbeed waxyaabo badan marka isbiirbiirsanayo hadda ninka la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madow wuxuu ku sugayaa xudur wuxuuna kulamo la qaatay booliiska iyo ciidamada militariga dowladda Soomaaliya halkaas ku sugan marka waxaana laga wada hadlayaa sida lafta garay meesha looga saari lahaa lafta garay markii meesha laga saaro waxaa la rabaa dowladda dad kale oo fara badan ay wadataa oo meesha inay tagaan rabto ay ku guuleystaan hadda lafta garay maadaama waqti ka dhamaaday cabsi iyo walwala soo wajahday wuxuu dabada la galay dowladda Ethiopia maalmo dhaweyd waxaa warar soo galay in dowladda Ethiopia diiday hadda maanta waxa soo baxay in Ethiopia soo dhaweynayso maadaama Ethiopia lagu qabsaday dilka Bakaalkooke reer gadan ay ku kaceen banaanbaxyo fara badan iyo dood fara badan iyo in lagu mudaharaad ay bilaabatay waxay bilaabeen marka in waxyaabo banaanbaxas dowladda ay macnaha ay gadaal ka riixayso in loo arkay dowladda Ethiopia marka waxay bilaabeen lafta garay inay taageerto iyadoo nabad ilaalin u joogto magaalada Baydhabo inay ka mid tahay nimanka lagu magacaabo ADMIS ay rabaan inay lafta garay meesha ku difaacaan halkii sanad dhameysto maamulada kale koonfur galbeed taageersanna ayaguna way taageeri doonaan waxay ku soo wajahan yihiin meesha la yiraahdo Baydhabo marka dowladda Soomaaliya wajiye fara badan ayaa macnaha ka soo horjeeda maamul goboleed ilaa 4 maamul goboleed markii laga reebo Galguudlaawe dowladda Ingiriiska iyo dowladda kale waxay taageerayaan dowladda Soomaaliya in lafta garan meesha laga saaro maadaama Ethiopia iyo Ingiriiska ay isku fiicneen marka wixii iska ila meereysay noqotay waxa marka arki doonaa guusha laga gaaro lafta garan inuu meesha ka baxo lafta garan 4 sano ka hor xoog ay meesha lagu geeyay Muqtaar Robo garbaduuba loo xiray maanta Muqtaar Robo wuxuu damcinayaa kursiga lafta garan ninka loo magacaabo Nisa Robo la dhashana oo bay loo magacaabana ninka la yiraahdo lafta garan dhib ay ku tahay waxa kale oo dhib ku ah Aadan Madow inuu xudur ka dagay oo ayadana oo macnaha operation halkaas ka soo abaabulay marka waxyaabo badan ay ku hareeraysan ninka la yiraahdo lafta garan inuu xilkiis ku weyn doono Robowna inuu meesha madaxweyne ka noqdo xataa wuxuu ka sii jeclaan lahaa horta lafta garan inuu meesha ka baxo haddii rabo madaxweyne noqonin lafta garan oo shacab inuu arko oo jeclaan lahaa marka siyaasadda Soomaaliya marba wajiye leedahay aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa goono inta badan ka faalooda arrimaha koonfurta Soomaaliya daawadayaal war wixii dalka iyo naga soo gaariyay dibadaba waa naga intaa dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tagnaa saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo